السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما قلق. maanta waxaa inoo hayaa qiso faldambiyeed uu ka dhacay magaalada Australia sanadka markuu ahaa 2015. qisada marka waxay kasoo bilaabanaysaa India. waxaa jirta gabar la yiraahdo Baraba waxay ku dhalatay tuulo yar oo la yiraahdo Amtar oo ku taalo South India. Baraba waxaa la dhashay wiil iyo gabar oo la kala yiraahdo Shiv iyo Shuba. waa wada shiin. aan aabaheed iyo hooyadeed way nool yihiin. aabaheed wuxuu lahaa kambani yar oo baabuurta taraagyada magaalada aada looga yaqaanay oo wuxuu ahaa nin muxtarim ah. iyadana marka meeshaasay ku barbaartay ay dugsi ku dhigatay waxbarasho ku dhammaysay. kadib markuu sanadka ahaa 1990 Baraba waxay shaqo ka heshay kambani oo engineering software oo ku yaala magaalo gobolkeeda la yiraahdo Bangalore. meeshaas shaqo u aaday ayadoo shaqadeeda iska wadato oo meeshaas joogto. markaas waxay isbaran doonaan nin la yiraahdo Arun xiriir wada yeesheen. kadib maxaa la yiraahdaa guur u soo bandhigay. Arun markii ay guurku u soo bandhigay familkeeda raalli kama ahayn, laakiin ugu dambeyn siday ahaataba Arun iyadii way isguursadeen. markuu sanadku ahaa 2000 ay isguursadeen iyadii Arun. adiga kadib waxaa u dhashay gabar. marka Arun isaga shaqada uu shaqaynayo kuma filneen gurigooda. wuxuu haystay isagana business yar, laakiin gabadhana lacag fiican sameynayso engineering software ka ahayd. adiga shaqadeedii siday u haysatay magaaladooda u deganaayeen. kadib kambanigiyaa wuxuu u soo bandhigay Baraba shaqo inay u aado Australia. way ku adkaatay, way ka fakartay iyadoo ka fakaraysa ilmaheeda yar ay ka tegayso. adiga waxay ku noqotay maxaa la yiraahdaa go'aankii ugu adkaa ee qaadato. kadib adiga way ka fakartay, waxay tiri dhaqaalaha ay India ku qaadato iyo dhaqaalaha Australia ay ku qaadanayso waxaa u dhaqaalo badnaaday Australia. si kastaba ahaatee ugu dambeyn contractigii way saxiixday, waxay ogolaatay inay aado Australia. markaas Australia u guurtay. sidii ay marka shaqo ku bilowday dalka Australia. Arun waxay ku nooleed dalkaas 3 sano. markaan ay dhiman doonto 3 sano ay ku nooleed Australia ay ka shaqaysanaysay ee familkeeda lacag u diraysay, ninkeeda lacag u diraysay, ilmaheeda u diraysay. adiga habeenada ka mid ah shaqaday ka soo baxday. sida caadada ah marka waxay raaci jirtay treenka markay ka degto way lugeynaysaa. dan meel yaroo jid oo adig geedo ahoo jid dhex maray sii martaa. kadib sidaasay gurigeeda ku aadaa. tareenkii markay kasoo degtay taleefanay ku hadlaysay, waxay la hadlaysay ninkeedii Arun ay u sheekaysanayeen ee jidka u socotay. qaybtii geedaha markay maraysay ayaa qof mindiyey gabadhi. nasiib daro ayada may ogeyn inay u socoto mowdkeeda, nolosheedii meeshii u dambeysay inay tahay. waxay isleeyahay gurigaaga tag, qabayso, seexo, berina shaqadaada aad. laakiin saacadeedii ayaa meesha kusoo dhammaatay. markuu mindiyey qofka mindida marka wuxuu ka geliyay dhuunta iyo meel halis ah ay ka badbaadi karin. gabadhii cidlo waay meesha, ayadoo meesha taalo oo dhiig baxaysa laakiin weli aan nafta ka dhicin. qof meesha lugaynayo wuxuu arkay qofkaanu ku dhiig baxayo dhulka yaalo. sidii u qayliyey ugu wacay qolooyinkii oo ambalaasta. wuu u wacay ambalaastia u timid. waa la qaaday, naf waa ku jirtay. waa la qaaday isbitaalkiyaa sidaas lagu geeyey. adiga dhakhaatiirtii way la tacaaleen adi muddo 4 saacadood kadib gabadhii way naf baxday, way dhimatay. marka waxaa soo galay qolooyinkii oo waxaa la wacay dambi baarayaasha oo keyska qaban lahaa siday wax u dhaceen, meesha ay ku dhimatay, faylasha qori lahaa ay yimaadeen. gabadhii maxaa la dhahaa waxaa la wargeliyey familkeedii inay gabadhi dhimatay. ninkeedii yaa loo sheegay. sidii marka Arun kusoo alaab xirtay, soo baxay, wuu soo dhoofay, wuxuu yimid Australia.
si uu meedkeeda u qaado iyo adi wixii alaab meesha u taala iyo marka elaboorka uu kasoo degay marka qoloy waa lasoo qaaday waa lasoo dhaweeyey kuwo oo newska wareysanaya la socday yaa u malaynaysaa naagtaada inuu dilay iyo waxaas in la wareystaa meesha loo keenay ninkii detectiveka ahaa wuu la yaabay siduu ninkan u socdo qof wax ka dhinta uma eka shakiyaa ku abuurmay hadda ogow habeenkiina markii ugu dambeysay ee qofku taleefonka ay ku hadlaysan isagoo ahaa oo la dilaayo wuu yaro shakiyey dadkan maarta dambaariyaasha ah qofka siduu u dhaqdhaqaaqaayay wax unbay yaqaanin dee wax iskool uga soo baxay waa wuu shakiyey waa la soo waday laboorkaa laga soo waday meesha hadan waxaa la keenay waraysigii mikrofoonkii uu qabsaday uu hadlayaa maba jixanjixaayaba maba ahaba qof ka dhintayba si buu u egyahay qof iska faraxsan camal murug kama muuqato ninkii keyska wuu shakiyey ilan qof gabadhan oo la dhihi karo maanta wuu dilay maleh oo keyskii loo furi karo ninkaas unbaa ninka way kaga dhigtay dambi baarihii inay ninkan uu yahay ninka ka dambeeya gabadhan dilkeeda yacni habdhaqankiisa siduu u dhaqmaayo iyo siduu ilan qofka bini aadanka murug inay ka muuqato waayo wuu shakiyey marka wuxuu yidhi miiskii uu fadhiistay wuxuu yidhi ninkan waan ka shakisanahay marka dambi baarayaasha ma aha moogta hal qof keliya waxaa la shaqeeya group aday qolooyin badanaa la shaqeynayso ama kiisaska isla fiirinayaan markaasaa bal maxaa adiga uga shakisay waxaan uga shakiyo yidhi bini aadanka markay murug ku dhacdo laba nooc ay murugtooda usoo bandhigaan qofka ama inuu indhihiisa ilmo ka yimaadaan uu ceshan karin uu dareemayo qofka ka dhintay ama xanuunka haayo ay ilmo ka keento ama inuu qofka qalbiga uu ka oynayo oohinta qalbigaas uu oynayno oo wejigiisii murugada ay soo tufto ninkan wuxuu yidhi labadaba kama muuqdaan sababtaas ayaan uga shakiyey dambi baarihii marka wuxuu isku dayay wixii macluumaada inuu soo aruuriyo marka wuxuu la fariistay ninkii intuusan bixin waa marka wuu joogaa weli wuu la fariistay wuxuu yidhi hadda noo sheeg si uun wax noogu tilmaamo xaaskaaga wax cadow may leedahay wax dhibkaan u geysan karo ma isleedahay yaa dilaa isleedahay mayr waxaa laga yaabaa tuugale inay dishay okay taleefonkaaga keenaa la yiri taleefonkiisiyaa la qaaday waa la baaray taleefonkiisii markii la baaraa waxaa lagu arkay gabar adiga ay isa sawiran yihiin gabar ay dareemi karaan inay gabadhaasi isaga ee dalka xiriir ku leeyihiin waa la weydiiyey waxaa la yiri gabadhan waayo markaasuu yiri gabadhan waxa waaye ma aqaan gabadhan ma ku dhahday gabadhan waa ayaa la yiri markaas wuxuu dhahay gabadhaneeti marka isagoo naxdin wejigiisa ka muuqato gabadhan asxaabaan nahay aadaan isugu fiican nahay dadka waa isaga dhownahay jas saaxiibaan nahay waa kaa wuu inkiray jas miyaa la yiri haa bis marka dambi baarihii wuxuu sidii ninka aad ku fasaxay wadankiisii uu aaday dambi baarihii marka taleefonkii gabadha ay lahayd ayuu dib u baaray gabadhii dhimatay waaya habeenkii la dilaayay horta intuusan taleefonka baarin wuu baxay wuxuu tegay meeshii lagu dilaayo ag socsocday wuu ka fakeray kaameray wina la fiiriyey maleh waxaa la arkay keliya iyadoo tareenka soo raacayso oo fuushay haddana tareenka kasoo degtay janjarada soo raacayso taleefon dhegta ku hayso oo lugaynayso bas intaasuu ku go-aa geedaha markay gaarto kaamerooyin ma laha oo sii wadaayo oo ama qof kusoo ordayo tusi karan meesha waxba kuma xirna taleefonkeediiuu marka baaray wuxuu ogaaday marka isaga la sheekeysanaysay inuu ku yiri demi taleefonka koley malaha wuxuu dhahay jaajarka iga dhacaya iyo batrii malaha kan hooyaday iga soo wac waa marka ay kaamirada ka soo baxda ay geedaha soo galayso kii demisay kii nambarka hooyadiisay ka wacday
een marka nambarka hooyadiisa ee ka wacday dembi baaraha wuxuu fahmay in qofka gabadhan dilaayo uu taleefankiisa uu taxi message uga diraayo uu maxaa la yidhaahdaa inta uu meeshaasay maraysaa haye yacni taxi message kula sheekaysana ilaa inta laga dilaayo tan uu taleefankan iyada ku mashquulinayo si ay u dareemin qofku soo socdo ama ay u qaylin ama ay u cararin ayuu uu fahmay bas ninkii adiga waddankiisii ku noqday wixii uu dambibaarihii wuu ka faqi waayay arrintii inuu marka wuxuu la xiriiray qolooyinkii oo India si maxaa la yidhaahdaa isagan xagga uu kiiska loo gudbiyey waa booliiska India isla shaqeeyaan oo ninkii waa la wareystay waa la wacay wax cadeyna oo lagu haayo ma jirto ilaa ninkan India joogaa gabadhan Australia lagu dilay dambaaraha wuxuu kaloo macluumaada u helay in uu taxi message telefonadiisa ka tirtiray bes marka dambe maxaa la dhahaa waxaa baxeen qolooyinkan oo dadka wareysta oo newska iyo way baxeen waa loo ogolaaday ad inay ninkan baaritaan wax ku sameeyaan labada dalaa wada hadlay waxaa loo tegay hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed adiga si loo ogaado bal baraada maxay ahayd xiriirka iyadii ninkeeda ka dhexeeya muxuu ahaa nolosheedu siday ahayd dambi baarahan wuxuu yidhi qofaan isaga ahaantiisa waaye dee maxkamad ma saari kara laakiin qalbigiisa waxa u sheegaya qof aan ninkan ahayn ma dilin sidii marka indiya ku tageen oo ay la fariisteen marka indiya la tegay walaalkeed shiifa walaalkeed iyo waxaa sheekaystay marka qolooyinkan adiga waxbaaraya wuxuu ku yidhi marka bal walaasha macluumaad naga sii nolosheedii markii intaysan Australia imaanin ayada iyo ninkan sidee nolosheeda ahayd noloshooda ay ku noolaayeen marka walaalkeed wuxuu yidhi horta walaashay bannaanka markii laga arkaayo waxay u ekayd qof faraxsan guri faraxsan haysato markii hataa especially markay gabadha u dhalatay farxad iyo waxaa laga arkaayay iyo laakiinuu yidhi walaashay waxay ahayd qofka soo saara oo guriga keena lacagta oo dakhliga guriga soo geliyo shaqo fiican ay haysatay isaga waxba badan business yar oo iska haysta waxba ma samaynaynin laakiin raaxada lacagta isagaa ku raaxaysanaya walaashay wuxuu yidhi akoomadeedoo dhan isagaa gacanta ku haya isagaa kontroolaya baabuurta uu wato mootooyinka saaxiibadaha uu aadayo caweysyada uu ku jiro iyadana way shaqaysaa asagana wuu ku raaxaystaa horta noloshoodu saasay ahayd marka ciddana waxay u ekaayeen cid ninka aan saasba u jecleen hooyadeed waxay tiri gabadheeda gabar fariiday ahayd gabar waxay ahayd shaqaysato gabar fiican gabar farxaan ah laakiin ma garanayay tiri qofkii dilay markii sidaa lagu yidhi dambi baarihii marka ninkii haddana la weydiiyey akoomanka gabadha akoomankaaga keenaa la yidhi bangi akawnadaada mar wuxuu siinaa miduu siinaa mar mid kaleu siinaa ad waraysidii maalin badan laga qaadaa akoono kala duwan markii dambe waxaa la ogaaday akoon bin nambarka oo lacagta lagula baxo oo markaa bangiga tagsida aad leedahay nambar qaasa oo la bedelay waxaana la bedelay xilliga ay gabadha dhimanayso isbuuc ka hor aa la bedelay waa bangi akoonkooda gabadha laheyd waay kale waa isla lahaayeen family ahaayeen waa la bedelay wuxuu ogaaday dambi baaraha inay gabadha 3 isbuuc kadib ay safar aheedaba indiya usoo socotay marka la dilaayo marka ninkan wuxuu dareensan yahay inuu xiriir hoose gabadhan kale uu kala dhexeeyo jacayl gabadhan tan uu rabay inuu qaarjiyo lacagaheeda dhanna bangiga uu kala baxo uu sidaas u dilay laakiin wixii dhan waa cad yihiin wax laakiin caddayn ahoo lagu haayo malena gacantiisa wax kuma diline adiga bangigii sidii loo baaraaye wuxuu kaloo ogaaday in markii gabadha inta aysan dhimanin
oo lacag uu ku shubay uu diray uu meel u diray oo adi gaarayso 5,000 oo lacagta Australiyaanka adiga waa iska dheh $2,000 ama $3,000 adiga qofuu u shubay marka wuxuu dareemay dambi baaraha in dad dilaa ah ama oo India joogo inuu lacagta siiyey dad kale inta uga soo direen oo gabadhii ay dileen sidaasuu markaas dambi baaraha uu aaminsan yahay marka maxaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la wareystay oo la raadiyey gabadhii saaxiibadiisa ee jaceylkiisii meel ay ka shaqaysaa sikadiisa loogu tegay waa la wareystay waxa waaye aruunay ammaanaysaa way difaacaysaa maya ma samayn karo wax dhacay ma aha aruun wasaa moodaan ma aha difaaci aruunba u bilowday meeshii wareysi laga rab waa laga shakiyey waxaa la yidhi labada qof dhex ka dhexeeyaan waa iska caddahay markaasaa waxaa la yidhi taleefonkaaga keenaa la yidhi wax macquul ahayn sheegtay oo taleefonkayga ma wato ma soo qaadanin ma haysto taleefon sidii ay marka uga soo tageen gabadhii way iska soo baxeen Australia ku soo noqdeen dambi baarahan wuu ka hari waayey marka dacwadan wuu ka hari waayey faylashin wadan isku diyaariyey haddana mar dhow aday sanad ka hor meelahaas bilooyin ka hor hadda la joogo haddana ay ku noqdeen India haddana cid waxay wareysteen gabadhii marka 21 jir waay gabadha hadda ay dhaleen 21 jir waay gabadhii ay wareysteen maxaa u malaynay gabadhu waxay tiri maya aabbahe waa jeclahay dee cunug maa dhahay aabbahe hooyaday dilay adi gabadhii warkii waxaa layidhi aabbaha inuu shaki soo galay ma og tahay gabadhii la wareysnaa waxay leedahay hooyaday hooyo fiicanay ahayd saanay ahayd aabbahe aabba fiican waaye aniga arrintan maskaxeeda ma qaadan karto waa uun gabadha way iska dareemeen laakiin qalbigeedii qalbi jabaa ku dhacay aabbaha dacwadan aabbaha ay ku furan tahay qof kale oo hooyadaa dilayna male isaga aan ahayn laakiin caddeemo kuma hayno saas ma u dareemi kartaa marka way ugu adag tahay dhahday si kastay ahaataba way ugu adag tahay laakiin diyaaran u ahay in la helo dilaaga hooyaday ee dilay gabadheedii saasay tiri hooyadiyaa loo tegay waxaa la yidhi haddana maxaa u diray fariinaa la yidhi hadduu uu maqlo dilaaga gabadhaada dilay maxaa dhihi lahayd hooyadii inta iska oysay waxay tiri waxaan dhihi lahaa haddiiba aa wax dilaysay maxaad gabadheeda u dishay maxaa aniga ii dili weyday intaasay hadal hooyadan kusoo xirtay sheekadiina weli ma xalismin dilaagiina mala gacanta laguma hayo maxaa la yidhaahdaa ninkii oo dambi baarahana sheekadan kama haraayo yiri faylkeedana muu daboolin ugu dambeyn hadda xaadirkan la joogo wuxuu madaxeeda kor dhigay ninkii informationkeena aruun qof barada qofkii dilay waxaa la siinaa abaalgud 1 milyan markii la wareysanayo waxaa la yidhi maxaa sidaas u tiri wuxuu yidhi waxaan u dhahayuu yidhi qof keligiis wax ma sameeyo waxaas laga yaabaa dad India joogo intay lacagtan damac ka soo gasho oo sirta wax la og inay maalin maalmaha ka mid yoomul ayaam ay soo hadlaan waxaanan wuxuu 30 sano ayaan dambi baaris ahayuu yidhi kiisas badan soo xalliyuu yidhi waan hubaayu yidhi kiiskan inuu ninkan yahay laakiin miiska iima saarnuu yidhi waxaan maxkamad ku saari kara oo cad aan haayo waa wax aan mid kale waxaa jirtay mar oo cajiib ay aheedoo isagoo guri hortiisa joogo oo tuba ka halaaday waxa loosoo samaynayo qolooyinkan oo Australia ka baxay newska u tageen arir kaale waxaan karmaa inaan kaala hadla arrimihii dilaagii xaaskaaga hadda nin loo yimid oo dilaagii xaaskaaga la dhahayo wuxuu yidhi isuga hoolaa ii taale intuu baxayo nimanka u tago tubada inta ka sameeye kabacdi uu soo noqday haye maxaa rabtiin ay gala hadasheen waxay dhaheen qof bini aadana oo qofkiisii la dilay oo dilaagiisii loo raadinayo oo sidaas u dhaqmo waan la yaabnay dheh yani reportada laga qoray waxyaabihii adi macluumaadkii laga qoray waa marka ninkan way ku caddahay dilka laakiin caddayn lama haayo hadda 1 milyan aa madaxeeda saaran yahay qofkii soo sheego ninkii Australiyaanka dambe baarahan wuxuu yidhi keyskan inaan daboolo way igu adag tahay maalin unbaa ninkaas siiti soo baxayaa yidhi waana sugaa maalintaasuu dhahay
hadda kiiska meesha weli lama xallin. Haddadaan xaadirka ahayna taagan tahay in la helana waa laga yaabaa kuley dhiig bani aadama ama gaal ha ahaada ama muslim ahaada ma qarsoomo, way soo baxaa maalintay ahaataba siduu ninka sheegaayo waaye. marka annagana jawaabtaan sugaynaa insha allah. waxaan rajaynayaa qisadan aad ku raaxaysateen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. channelkan ha iloobina share iyo like inaad saartaan. kulligeen habeen wanaagsan, waana mahadsantiin ama maalin wanaagsan meel kasta aad dunida iyo dacwadada ka joogtaan. assalaamu calaykum.